Ramadaan Mubaarak. Muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay caafimaadka iyo soonka ama faa'iidooyinka caafimaad ee uu noo leeyahay soonka. Waxaanu soonnaa sanadkiiba mar annaga oo 11 bilood oo sanadka ka mid ahna afuran. Haddaba maxay tahay faa'iidooyinka caafimaad ee uu noo xambaarsan yahay bishaas Ramadaanka ah soonka aynu soomayno? Markii laga tago faa'iidada weyn oo xagga Rabbi noo taala, waxaa jira faa'iidooyin caafimaad oo dhowr ah kuwaasi oo ay mudan tahay in la isdul taago si ay u ogaadaan dadku. Waa midda koowaad, soonka ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo fasting-ka waxa uu muhiimad weyn u leeyahay caafimaadka dheefshiidka. Maadaama muddo 11 bilood ah uu qofku wax cunayay, waxa uu jirkiisa u baahan yahay waqti uu ku nasto isla mar ahaantaana uu ku sameeyo dib u kabasho. Bisha Ramadaanka ah, habdhiskaaga dheefshiidka waxa uu faa'iido weyn ku qabaa soomitaanka aad soomayso, oo waxa uu helayaa waqti uu ku nasto iyada oo ay fursad u noqonayso soo kabashadiisa. Sidoo kaleeto waxaa dadka uu ka yareynayaa soonku waxa loo yaqaano insulin resistance, oo ah in jirka uu iska diido dheecaanka insulinta oo muhiim u ah xareynta sokorta dhiigga ku jirta ee ka timaada cuntada la dheefshiiday. Insulin resistance waxa ay ku badan tahay dadka buurbuuran. Sidoo kaleetana soonku faa'iido weyn ayuu u leeyahay dadka buuran, waxa ayna haystaan fursad ay cayilka isaga dhimi karaan xilliga ay Ramadaanka sooman yihiin. Waxaa kale oo iyana muhiimad gaar ah oo mudan in la isdul taaga in soonku uu yareeyo waxa loo yaqaano inflammation-ka ama caabuqa. Caabuqu waa hab jirkeena uu adeegsado inuu uga hortago cudurrada jirkeena soo weerara. Laakiin markii uu waqti dheer jiro oo loo yaqaano chronic inflammation, waxaa ka dhalan kara cudurro ay ka mid yihiin kansarada, cudurrada wadnaha iyo cudurka rheumatoid arthritis. Sidaas daraaddeed, soonku waxa uu hoos u dhigaa heerka iyo xaddiga chronic inflammation-ka ama caabuqa daba dheeraaday oo jirkeena ku ah khatar. Waxaa kaleeto oo uu soonka ama fasting-ka bisha Ramadaan wax weyn ka taraa caafimaadka wadnaha iyo hoos u dhiga xaddiga kolestaroolka. Sidoo kale, soonka waxa uu qofka ka saacideeyaa ka hortagga iyo maareynta duqowga ku yimaada jirka, iyada oo uu ka hortago burooyinka iyo kansarada kale aan weli la ogaanin ee qofka u qarsan. Waxa uu kale oo uu ka caawiyaa dadka la nool cudurrada burooyinka iyo kansarada in uu hoos u dhigo ama yareeyo faafidooda iyo korinshahooda, maadaama burooyinka ay u baahan yihiin nafaqeyn joogto ah. Fasting-ka guud ahaan waxa uu leeyahay faa'iidooyin intaasi ka badan, balse maanta intaas ayaan kusoo koobaynaa, annaga oo muuqaaladeena dambena uga hadli doono inta bisha Ramadaan lagu guda jiro iyo cuntooyinka ugu muhiimsan ee ay qaadan karaan dadka waayeelka ah, kuwa sokorta qaba ama la nool cudurrada wadnaha iyo kolestaroolka zaa'idka ah.